السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي إذا قالوا وسلامتهن ميل والبودن الدافئ أكجوكتين وحان هل كان كعمبارينا يا حرقة لوجيستي موسيشن أبوان فنان دراميستي محمد إبراهيم عدو أولو يخانو شولياري وحال اللي هي حالي شن إيطوان أيو إهد انتو kuwa baristay xabsiga waxaana loo haystaa ama lagu xiriyaa la leeyahay heestii ay kheelidaan soo qaadeen ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku dhaliilayeen ayuu sheergareeyay oo kaliya waakina maxaa u sheergareysay oo kaliya ayaa lagu haystaa ayaa la leeyahay asagoona warqad maxkamadda laga keenin dambigiisana loo sheegin waa la qabtay waa la xiray ilaa xali 15 maalmood ayuu xabsiga ku jiraa waa nin iska xanuunsan sokorow qabaa dhiig karow qabaa teeda kalamaad waa nin muwaadin ah dalkiisa jecel kana tirsan ciidanka booliska kabtanna ah kooxda heeganna batriida ama muusinka u tumo waa nin qarankiisa jecel dagaalada intay dhacayeen ilaa hadda isjidkii aan dalkiisa ka bixin ilaa hoola shaqi inuu aado Jabuuti mooyee waa nin muwaadan asli ah oo sax ah dalkiisana jecel dowladnimadana jecel in la iska qabto sida erigo kale la iska xareysto la iska xiro asagoon loo sheegin maxkamadna warqad loogu keenay maxkamadan la saarin 14 bari maanta 15 bari inuu ku xirnaado xabsiga CID taas ayaan cambaareynaa maadaama aniga leegu tiriyo fanki iyo suugaanta banaadiriga inaan qayb ka ahay dhammaan fanaaniinta kuwa heeso kuwa muusika tumo kuwa hal abuurka dhammaantiina waa ka aamusteen khadiyadan idinkay idin taalaa Soomaaliya u taalaa ninkaas xaqiisa ha loo dhiciyo waxaa la leeyahay ninkan waxaa sirq u dhigay ama shirqool u dhigay ninkan oo magaciisa la yiraahdo Cabdifataax afayeenka booliska ah ayaa hadda ka hor asagii labadood khadiyar dhaxmartay markuu General Sulub ciidanka booliska haystay ayaa la leeyahay $10,000 ayuu General Sulub u soo diray kooxda Hegan si kooxda loogu qeybiyo lacagta ninkan afyeenka sheegto oo booliska ah lacagtii hoos ayuu u maamushtay waa musuq maasiqay inta kale markay aamuseen Maxamed Ibrahim Cadow oo loo yaqaan Shooliyar arintii kama aamusin wuxuu toos oo la hadlayay yiri General Sulub markuu haystay way ayuu yiri haddii aan lacag noo soo dirtay anaga lacag noo soo dhiibtay wax lacag ahna ma soo gaarin ee General ogow intaasoo kaliya u dhahay kadib waxaa dhacday Sulub inuu ninkii Cabdifataax ahaa qabto jagadiisana uu meesha ku waayay ninka Cabdifataax ahaa kadib markii musuq maasiqiisa la ogaaday kadibna markii oo arimo beeleed iyo jin ay imaadeen sidii ama sabkiisa dal loogu soo celiyay asagoo xarashkaas u haayo markuu arkay inuu sheergareey heestan ayuu report been ah ka qoray ninkan fanaan waaye siyaasad shaqo kuma laha wuxuu sheergareeyna heesay ahayd ama madaxweynaha lagu dhaliilo ama cid walba lagu dhaliilo wax khalad uu geystay aniga meesha iiga muuqda ma laha in xuriyada laga qaado misana la xiro oo cid u doodana la waayo maxal wariyaalka telefishinada inta raadiyo muqdisho ku nool iyo TV-yada dhan afkay ka qabsadeen hal fanaan ama hal abwaan ka soo hadlay ma jirto arintan kuligood waa aamuseen ilaa markii laga reebo Zakriya Timcade oo daraad shalay ku soo qaatay bartiisa Facebooka waxaan halkan fariin ugu dirayaa dhammaan inta ku hadasha magaca fanki iyo fanaaniinta hal abuurayaalka kuwa fankaroolka dheela dhammaantiina ninkan Shooli waa nin masaakiin ee walaalkiin ah haloo kaco haloo mudaaharaado xaqiisa hala sii xurrimadiisana hala sii waayo waxa lagu haysta gardara way Shooli waa nin muwaadin ah waa ninaan dadkiisa afkiisa dad gaarin waa intii jijidka iyo dagaalada socod dalkiisa ni joogi ciidiisa iyo dhulkiisa aaminsanaa way waxa lagu haysto waa qalad waxa ka dambeeyna xirigiisa ama uu xiran yahay waa ninkan Cabdifataax la leeyahay ee afyeenka booliska ah waa ninkan shaydaanka ah ayuu u xiran yahay asaga haysto dawlad uma xirno
haddii uu dowlad u xidhan yahay nidaamkii dooliga loo soo mari lahaa warqada maxkamadda loogu keeni lahaa dembi noocan ayaa gashyaala ilaan waa ninka nin xasaanad leh waa nin boolis ah waa nin kabtan ah waa nin ka tirsan kooxda heegan batriyesta ama daraamistaha waay ma istaahil hal mar in la iska qabto oo la iska xareysto siyaasad ma faragashanin madaxweyne macaanin hees oo keliya ayuu sheergareeyey haddii ninka muwaadinka asagoo dalkiisa jooga uusan hadli karin ra'yigiisa uu ka hadli karin xorriyatal khool jirin waxa waaye gumaysi waay waxaan dalbanaynaa haddii aan nahay bahda fanka iyo fanaaniinta iyo suugaanta ninkan shooliyar la yiraahdo xorriyadiisa in la siiyo hadduu dembi galayne dembigiisa in lagu qaado laakiin micno dar inuu xabsiga ugu jiro taas waxaanu aragnaa qalad iyo ihaano asaga muwaadinnimadiisa iyo dadnimadiisa iyo kafanaannimadiisa meel loogu dhacay waxaa kaloo ceeb ah wariyaalka ama telefishinka ama raadiyaha ama dadka baraha bulshada ku jiran arrintan in ay ka aamusaan taasna ceebaan u arkaa waayo damiir xumay idinku tahay walaalkiina in xirig loo geysto haddana si hoos xataa warkiisa u soo gudbin weyseen madaxweynaha gudoomiyaha ra'iisul wasaaraha intaba waxaan ka codsanaynaa iyo maxaa la dhihi jiray taliska ciidanka booliska in ninkan shooli xorriyadiisa la siiyo waa nin masaakiin ah wuu ku xanuunsanayaa meesha sakarow qabaa dhikarow qabaa marka maxaa loo cadaabaa nin muwaadin ma aho marka waxaan dalbanaynaa ninkaas xorriyadiisa in la siiyo warkeygana halkaas ayaan uga baxay dhammaan fanaaniinta meel walbo aad joogtiin fariintan idinkaa idinku socotaa hala hadlo khabiil ma tihiin bahda fanaaniintan lahaa iyo fankii fanaaniinta meel walbo aad joogtiin arrintan ha laga hadlo ha laga dhiidhiyo khayradaan ha laga sameeyo waa idin salaami